السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا سومالي جوبس مدش الصوب بندقتا فرصة الشقاء iyo waxbarasho madasha isku xidha shaqo raadiyayaasha iyo shaqaaleyaasha waxaynu maanta eegi doonaa sida loo diyaariyo CV ama resume sida ay naga soo codsadeen bulsho badan oo ku xidhan Somali Jobs inta aynan gudagelin samaynta CV-ga oo aynu si waadixa ugu samayn doono haddii la yiraahdo barnaamijkeenan maanta waxaan eegaynaa maxaa ay tahay in lagu qoro CV-ga waxyaabaha CV-ga lagu qorayo waxa kamid ah personal details waxyaabaha ka warramaya qofka magaciisa addresskiisa emailkiisa mobilkiisa waxyaabahaas kamid ah waxa kamid ah CV-ga aan ku bandhigi doonaa heerarka kala duwan ee waxbarasho iyo shahaado ee qofku leeyahay waayo shaqooyinka hadda aynu wadankeena ama dalkeena ka jira waxa lagu xiraa level kala duwan ama heerar kala duwan waxbarasho caadiyan CV-ga waxa muhiim ah inaad waxbarashada levelada ka gaadho dhammaan ku muujiso waxaan sidoo kale ku eegaynaa oo aynu ku muujinaynaa CV-geena work experience khibradaha shaqo ee qofku leeyahay ayuu ku qorayaa isagoo u qoraya sida ay shaqooyinku u kala dambeeyeen tusaale ahaan shaqada imika aad hayso waad ugu soo horreysiinaysaa shaqadii aad hore u hayn jirtayna waad ku xigsiinaysaa si nacam ay shaqooyinku had iyo jeer ay u soo kala sokeeyeen ayaad u qoraysaa had iyo jeer waxa kale muhiim ah oo CV-ga aynu ku muujin doonaa skillska ama khibradaha dheeraadka ah ee qofku leeyahay iyo waxyaabaha uu awoodda ku leeyahay ayaynu iyagana ku muujin doonaa haddii la yiraahdo skillska waxa kamid ah qofku wuxuu aqoon u leeyahay computer ku aqoon dheeraad u leeyahay language buu yaqaan ka baxsan language-yadan shaqada la doonayo iyo tababaradii u dambeeyay aad qaadatay waxyaabahaas oo dhan baa lagu muujinayaa CV-ga maxaan haddaba lagu muujinayn CV-ga waxyaabaha ka reeban in CV-ga lagu muujiyo waad ku muujin kartaa laakiin macna ma sameynayaan CV-ga waxay noqonaysaa mid aan macno lahayn waxa kamid ah inaad CV-ga ku qorto date-kii ama sanadkii aad qortay oo tusaale ahaan 2008 baan qoray adigoo maanta shaqo abla garanaya 2014 waxa kamid ah waxyaabaha ka baxsan macluumaadka lagu la soo xiriirayo waxa kamid ah adoo da'daadii sheega adoo yiraahdo male ama female baan ahay adigoo ka warrama xisbiga ama mabda'aaga siyaasadeed adigoo sheega xaaskaaga ama carruurtaada magacyadooda looma baahna kuwan in lagu qoro waxa ka reeban CV-ga in lagu qoro sawirkaaga inaad ku dhajisaa macnaheeduna sameyn mayso waxa kamid ah inaad ka waranto astaamahaaga qof dheer baan ahay qof gaaban baan ahay waxa kamid ah oo aan CV-ga aan macna u yeelayn inaad ku qorto shaqada tan aad CV-ga u qorayso shaqooyin aan xiriir la lahayn oo aad ka buuxiso wax macna ah ay soo kordhinaysaa ma jirto waxa kamid ah adigoo ka warrama weaknesses-kaaga tusaale ahaan Microsoft Word baan si fiican u aqaanaa laakiin Excel-ka waan ku liitaa waa weaknesses loo baahan inaad sheegto waxa kamid ah oo CV-ga ka reeban oo aan lagu darayn negative comments-ka tusaale ahaan kale inaad ka waranto booskaagii hore oo aad tiraahdo waxa madaxay ahaa nin dabeecad xun waxa madaxay ahaa nin shaqaalaha ku adag waxay muujinaysaa taasi nacam weakness aad leedahay oo ah in attitude-kaagu negative yahay shaqadaana ma ka cid ku siimayso waxa kamid ah inaad ka waranto mushaharkaagii oo aad tiraahdo mushaharkaygu wuu yaraa cayn karo ahaa that means loo baahna CV-ga inaad ku qorto negative comments waxa sidoo kale aan CV-ga looga baahnayn inaad ku darto magacyada iyo meelaha lagala xiriirayo employers-kaaga hore waayo taasi waxay iman doontaa interview-ga dhexdiisa lagu weydiin doonaa reference-kii iyo ciddii la xiriirayay waxa kaloo kamid ah inaad ku qorto kelmaddan had iyo jeer lagu qoro ee ah references are available upon request nacam codsi kadib bay reference-ku uu
available noqonaya lama baahna waayo haddii lagu xiiseeyo oo CV-ga la xiiseeyo marka interview-ga la galo ayaa reference-ka lagu weydiinaya waxa sidoo kale ka reeban CV-ga inaad ku qorto waxyaabaha beenta ah ama misleading information-ka inaad been ka sheegto qualification-kaagii mushaharkaagii title-kaagii achievements-kii ama guulihii aad gaadhay intaas waa inta ka reeban in CV-gaaga lagu qoro haddii aad ku qortana wax macna ama had iyo jeer samayn mayso waxyaabo kale oo ka reeban baa iyaguna jira oo aad sii google garayn karto oo sii baari karto waxaan haddaba samayn doonaa inaan toos u geli doonaa inaan CV-gii samayno CV-ga haddaba si aynu u samayno caadiyan markaad Microsoft Word soo gasho CV-ga magacaagaad ugu horreysiinaysa xataa looma baahna inaad ka horreysiiso CV ama inaad tiraahdo aad resume ka horreysiiso wax loo baahan yahay ma aha runtii waxaad ku qoraysaa had iyo jeer magacaaga ku bilow addresskaaga telefoonka iyo emailkii waa muhiim markaa intan inay taalo meel ishu ay ku dhacayso waayo waxaad u baahan tahay haddii CV-gaaga laga helo oo ay CV cajiiba noqoto inaad qofkii employer-ka ku qasabto inuu markaaba kula soo xiriiro inta markaad saa u qorto waxa iyaduna muhiim ah inaad in yaro profile qorto ama statement yaro ka warramaya kuma tahay adigoo run ka sheegaya exactly qofka aad tahay baad qoraysaa adigoo graduate haddaad tiraahdo waxaan ahay 10 sano experience aan leeyahay waa beentaasina waxa weeyaan mar la soo qabtaba waa la soo qabanaya inta markaad saa u qorto yani ka badan 3 line 4 line oo kooban oo xiise gelinaysa qofka hadii jeer CV-ga akhriyay waxa ku xigaya markaa work experience ayaad iyadana qoraysa had iyo jeer waxa organizer ha noqdaan ha habaysnaadaan waxaynu gelinaynaa markaa table marka work experience-ka waxa weeyaan waxaad qoraysaa sanadkii aad shaqada qabatay ilaa xilliga aad haysay cid aad u shaqaynaysay iyo title-kii iyo faahfaahinta wixii aad qaban jirtay waxaanu samaysanaynaa markaa table yar waxaan tagayaa insert waxaan leeyahay table yar noocaas oo kala samaysanaya halka waxaan ku qorayaa markaa date halkaana waxaan ku qorayaa employer halkaana waxaan ku qorayaa title ama position aad ka haysay employer-ka inta markaan sameeyo halka waxaan ku qorayaa markaa date-kii waxaan leeyahay 2011 to present ninka la Maxamed Ibrahim 2011 ilaa hadda wuxuu ka shaqeynayay Somali Choice markaa wuxuu ka ahaa accountant xisaabiyo ka inta markaan saa u qoro waxa la iga baahan yahay inuu xisaabiyahani wixii uu qabanayay inaan qoro marka waxaan sameysanayaa row yar oo kala sameysanayaa halka waxaan ku qorayaa markaa tasks waxaan isku furayaa markaa rowga highlight-kan saaraya waxaan oranayaa markaa right click merge cells dabeed kaasaan hoos soo degaya halka markaa waxaynu ku qoraynaa ninka odaga ee accountant-ka ah muxuu qaban jiray waxaan ku tusayaa markaa meel haddaba taskiska aad ka soo download garaysan karto ama aad ka soo koobiyeysan karto laba mid bay noqonaysaa inaad website-kan aan kuu sheegi doono aad ka soo koobiyeysato iyo in exactly job description-kii aad lahayd ee aad company-ga ugu shaqaynaysay aad qorto waxaynu gelaynaa markaa website la yidhaahdo net online.org website-ka waxa iskale qolo la yidhaahdo American Job Center baale waxaa ku jira dhammaan job descriptions-ka shaqooyinka title-lada oo dhan inta u badan waxaanu sameynaa haddaba aan taa u soo qoranno waxaan gelayaa markaa internet-kii baan gelayaa Google waxaan ku qorayaa markaa netonline.org inta markaa aynu qorno site-ku waa kan waxa la yiraahdaa net online baa la yiraahdaa site-ka kan waxaan uga baahanahay inaynu occupation-ka accountant-ka aynu helno job description-kiisii halka occupation baynu galaynaa waxaynu ku qoraynaa markaa accountant
dabeed waxaan odhanaynaa markaa search raadi wuxuu inoo soo saari doonaa markaa positionska accountantka u dhow oo dhan inaga waxaan u baahanay ka accountantska ah waxaanu helaynaa markaa taskiskii uu qabanayay ninka odayga ah ee xisaabiyaha ah waxaa hoosta ka xiga toolska iyo technology-ga uu isticmaalayo waxaa hoosta ka sii xiga knowledge-ka looga baahan yahay qofka accountant-ka ama xisaabiyaha ah waxaa hoosta ka sii xiga skills-ki waxaa ku sii xiga abilities-ki waxyaabahaas oo dhan baad list garaysan kartaa qaadan kartaa waxaan daba u baahannahay imika inaanu taskiska oo kaliya qaadano highlight-ka ayaynu saaraynaa dabadeed waynu koobiyeynaynaa waxaynu soo laabaynaa kan markaa minimize then halkii taskiska ayaan right click samaynaya waxaan leeyahay markaa best waxaanu hadda samaynaa markaa employerkii koowaad Somali Jobs buu ahaa accountant baan ugu shaqaynayay waxyaabahan waa wixii aan qabanayay haddaba waxyaabaha aynu soo koobiyeynay wixii aanad awood u lahayn ee aanad qaban karayn ka saar wixii ka dhiman ku dar waayo wanaga nidin looma baahna macluumaad fake ah inaanu had iyo jeer CV-geena gelino oo hadhow haddii wax laynaga weydiiyo aynaan ka jawaabi karin taasi markaa shaqadii koowaad ba ahayd halkaan imanaya waxaan leeyahay shaqadii labaad 2010 ilaa 2011 jaamacadda Hargeysa ayuu ninka odayga ahay wuxuu ahaa human resource director madaxa shaqaalaha ayuu ahaa wuxuu baahay markaa in hadaba la qoro ball baan ka dhiganaa titleska always waxaan hadaba u baahanahay taskiskii HR-ka inaynu la soo baxno ka waynu isku furayna had iyo jeer taskiska highlight-kanu saarna waxaan leenahay right click merge cells dabada halkaas aan tagay waxaan leeyahay human resource-ka taskiskii xageenu ka helaynaa waxaanu ka helaynaa inaynu ku soo noqono website-kii onnet marka aynu soo galno halka dusha sare ayaa waxaanu ku qoraynaa markaa human resource director dabada waxaan leeyahay markaa enter wuxuu siinaya markaa human resource job descriptions fara badan ta ugu dhow waa ta 100% ka marka waxaan qaadanayaa taas oo kale human resource manager kaas waa specialist human resource manager baan u baahanahay dabad waxaan koobiyeysanaya markaa isagana taskiskii uu lahaa HR waxaan tagayaa markaa weelkii baan ku noqonayaa halkaas aan markaa soo dhigaya best waxaan haddana sameynay maxay shaqadeennii labaad oo jaamacadda Hargeysa ahayd oo human resource director ahayd waxyaabaha markaa aynu soo koobiyeynay wixii aan sax ahayn ee aanad awood u lahayn ka saar wixii ka dhimanna ku dar haddii aad u baahan tahay shaqo saddexaad exactly oo la xidhiidha waxyaabaha CV-ga aad ku qoraysay khibradda u leedahay waxaad leedahay 2009 to 2010 waxaan ka shaqaynayay Puntland State University waxaan habaan leeyahay tusaale ahaan oo kale cashier then ball baan ka dhigayaa titleska halka waxaan ku qorayaa markaa tasks then waan isku furayaa markaa rowga waxaan leeyahay merge cells dabada halkaasaan hoos u degayaa waxaan leeyahay markaa cashierku muxuu qabtaa waxaan ku noqonayaa markaa onnet online halkii aan ku qoro human resource-ka ayaa waxaan ku qorayaa cashier dabada waxaan leeyahay enter waxay soo baxaya markaa cashierski waxaan ku dhufanayaa cashierska occupation-ka then taskiskii shaqooyinku qabanayay exactly markaa intaa koobiyeyso dabadeed ku noqon markaa weelkii halkaa isagana right click samee waxaad tiraa best kaana wuxuu noo soo dhigay job description-ka uu lahaa positionska aad qabatay oo dhan ama experience-kaaga oo dhan saasaad dhammaantood u list garaynaysaa inta markaad saa u samayso waxaa ku xigaya markaa education-kaagii waxaad leedahay educational background maxaad soo baratay education-kii iyagana waxaad u samayn kartaa table waxaad leedahay insert table waxaan ka dhigayaa iyagana markaa date-kii institution-kii iyo certificate-kii waxaan leeyahay date institution-kii aan ka qaatay shahaadada iyo
certificate ama degree aan haysto waxaan sameeyaa marka waxaan leeyahay 2000 iyo waxaan leeyahay 13 ama waxaan leeyahay 2000 iyo 12 ilaa 2000 iyo 13 waxaan leeyahay waxaan Nairobi University ka dhameeyay ama su'aal ahaan oo kale Mogadishu University waxaan ka dhameeyay master's degree in economics waxaan kitaab baan qabanaya haddana waxaan qorayaa marka 2000 iyo 9 ama say 2000 iyo 5 ilaa 2000 iyo 9 waxaan University of Hargeysa ka dhameeyay Bachelor of Business Administration waxaan leeyahay 2004 ilaa 2003 Zimmer University waxaan ka dhameeyay diploma in peace and conflict resolution نعم سأقول ليش قريب وحلو وحي أدبرته دم وحنا لما بكون say 1996 up to لباديكم وحنا دمي فارغ عمر secondary school شهادة هنا وحي GCSE سامر هذول ليش قريسو هاي لو إنت فورمات قريسو وتقرحيسو وتجاجسو أنت مركز أورا مايسو واحد كل شيء كرتا سيمينار هذه سكيلز كاجي وحلا سكيلز هذا سكيلز وحاولن كرتا seminars and trainings attended then waxaad isagana qori kartaa dhammaan wax la wixii aad samaysay tusaale ahaan bullets baad ka dhigi kartaa waxaad leedahay waxaan aqaanaa SPSS 20.0 oo statistics waxa lagu sameeyo waxaad taqaanaa GIS waxaad baratay peace waxaad tusaale ahaan kala baratay peace and conflict resolution skills waxaad taqaanaa mediation skills waxaad taqaanaa conflict analysis waxaad ka qayb gashay governance and leadership seminar wax la wixii aad skills lahayd ee la iskaranaysa inta waxaad ku xigsiinaysaa marka language oo iyadana aad ku qorayso languageska aad taqaano waxaad oran kartaa Somali number 1 English Arabic haddii aad Talyaaniga taqaano Talyaani France hadda waxa la wixii language taqaano inta marka saa u isgarayso wixii reference waxaan u dhaafanaa in hadhow interview kadib la soo codsado waxa ku xigaya marka CV inaad ka dhigto marka mid qurux badan oo wanaagsan oo aad formattingkeeda iyo aad u habayso si had iyo jeer attraction employer marka uu si fiican had iyo jeer ay u soo jiidato marka CV-gaagu waxaan isku iman doonaa haddii la yiraahdo sessions kale oo waxyaabo kale insha Allah aynu kaga warramayno guul baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.